waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu bishaareynaayaa inuu berrito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo 1,000 dhalinyaro ah oo degan magaalada Muqdisho. waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ka codsanayaa in shaqadaas yar ee bilowga ah uu u guto sida ugu habboon ay u astaahilaan dhalinyaradana waxaan ka codsanayaa inay u gartaan taasi inay tahay bilow keliya. waxaa kaloon idin xasuusinayaa in magaalada Muqdisho aanay ahayn dalka Soomaaliyeed inaan sidaasoo kale yeeli doono dawlad goboleed walba haddii ilaahay raaco. wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Khayre meeshan ka soo jeediyay oo noo sheegay in uu shaqaalaysiin doono 1,000 dhalinyaro ah. runtii waxaan u arkaa inay tahay nabad iyo nolol wix lagu heli lahaa. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa uu caawin dareensiiyay dhalinyarada Soomaaliyeed dawladnimo dhaba in wax kasta oo la bixinaa lagu saleeyo 17 degmo ee gobolka Banaadir si degmooyinka tira xaq u helaan waa koow. midda labaadna waxay tahay in loo sinaado gabar iyo wiil. marka waxaan isleeyahay meelaha aadka runtii waxyaabaha aad iyo aad loogu ammaani karo ayay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayay ka mid tahay. mudanayaal maanta waxa halka ka dhacay waa ammaan waa sharaf aad u soo hooyeyseen ummaddii aad xilka u qaadeen baarlamaankii 7aad iyo 9aad ayaa wax badan hawshan ka soo qabtay laakiin nasiib darro kumaysan guulaysanin laakiin adinkoo 6 bilood kali jira ama 7 bilood inaad sharcigii aad nala gorfaysaan nala qaabaysaan kadibna noo ansixisaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. waxaan rabaa mudane gudoomiye in si gaar ah aan kaaga mahadceliya adiga iyo gudoomiyaha labaad sidoo kalena si gaar ah ugu mahadceliyo mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo runtii si tala odaynimo markaas nala garab taagnaa. waxaan filayaa aqalkani sharcigani ahamiyadda uu dalka iyo dadka u leeyahay ayuu garawsaday. akhriskii saddexaad wixii ku soo kordhiyeenna waa laynoo akhriyey. marka hadda waxaynu u taagannahay cod inaan u qaadno sharcigan ansixintiisa. gacantaa taagan runtii annagoo 6 bilood joognay oo dawladduna xukuumaddana ay joogtay 4 bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumaddan ay gaartay. anigoo ah waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho aniga oo insha Allah taala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarta. wabillahi tawfiiq. in maaragtay qof walba oo muwaadina maaragtay la soo dhaweeyo cafiska oo dawladda iyo dadka ka dalbanayna laga ajiibo kuwa kalena aan u yeerano ubadkeenna maalin walba badaha ku daadanayana dhagar qabayaasha qaarkood ay dib u qarxinayaan in maaragtay tusaale u noqon doonto. waxaan isleeyahay oodayba soo goosan doonaano cid kuma hari doonto in badanna waa rajaynaynaa inay yimaadaan. marka waxaan leeyahay waa tallaabo geesinimo leh ha la soo dhaweeyo. waxaan leeyahay maaragtay go'aanka uu qaatay Roobo Masuur oo ah waqti dheer inuu maaragtay uu aamusnaa waxay ila tahay aflagaado iyo hadallo caaya laguma maqlaynin hanjabaado iyo waxyaabo gooni aanu kumaan arag. waxaan is leeyahay dabcan damiirkiisa si inuu maanta yimaado maanta hadduu yimidna gacmo furna lagu soo dhaweeyaan leeyahay. dawladda federaalka waxaa aas u ah in xasiloonida iyo nabadgelyada amniga dalka laga shaqeeyo. waxaa sidoo kale aas u ah in qof walbo muwaadin Soomaali ah oo ka waantoobo falalka ay ku jiraan argagixis haddii noqon lahayd iyo wixii kale oo markaas dalka dhibaayo
hadday ka waantoodo oo dowladdu isu soo dhiibtay in dowladdu gacmo furan ku soo dhaweyso iyadoo la tixraacaya go-aanka madaxweynaha federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo la tixraacaya in qof walba isu soo dhiibo oo dowladdu gacmo furan ku soo dhaweyso sidoo kale saa ula socotaan maalmahan dowladda dadaal ay ku jirtay oo ah in xasiloonida laga shaqeeyo sidoo kale dadka isu soo dhiibna gacmo furan lagu soo dhaweeyo waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa wasaarad aad u muhiima carruurteenna in wax la baro waa sida keliya aan ula tartami karno dunida inteeda kale adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan wakhti iyo xoog gelinnaa in carruurteenna wax la baro carruurta wax la baraayana ma aha carruurta xamar joogta keliya wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaarad u ahayn dadka xamar jooga laakiin dadka soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad dadka soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan weliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan guddigan kumeelgaarka ee maamulka ama maareynta deeqaha waxbarashada waa guddi kumeelgaar ah oo ka kooban 9 xubnood waxay ka kala yimaadeen bulshada rayidka ah aqalka sare aqalka golaha shacabka iyo wasaaradda marka intaasoo la isku daray ayaa horta guddigan afqoom gareey guddiga laba arrimood ayaa ma arkaysaa muhiim u ah aan ka rabnaa kow inay nala hubiyaan deeqahan meesha ka imaanayaan iyo tiradooda talabaad waxaa waaye wixii in si cadaalad leh loo maamulay oo shuruudihii la degsaday oo wasaaradda waxbarashada ay dejisay la raacay iyo ardaydii xaqa u heshay oo ku guulaysatay deeqihii waxbarashada in maxaan kuu sheegaa ay meeshii loogu talagelay aadeen guddigan waxaa loo asaasay inuu korjoogo ka noqdo waxbarashada deeqaha Soomaaliya yimaada si arday walba oo Soomaali oo xaq leh uu helo waxbarashadii uu u soo dadaalay inuu helo scholarship-ka waxaanu helnay deeq waxbarasho oo maanta aan aad u mahadcelinayna dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaraddan isku hawshay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo iyada barnaamijkan hadba taabagelinta iyo maarta ka farxidinka iyo maarta waxyaabaha ku aadan in ay dhiirigelisa ardayda sare ee dugsiyada sare ka soo qalin jebinaysa aad baan u mahadcelinayaa but also the Minister of Finance, the Minister of Defence, the Minister of Planning and Economic Cooperation, and several others, to discuss progress and the partnership between the government and the international community. wuxuuna daba socday shirkii May oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siiya aan waxay ahayd in la isweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay 3 bilood la soo dhaafay iyo meesha loo socdo iyo waxaan uga baahanahay wadamada caalamka waxyaalaha laga hadlay waxaa kamid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay wadanka siyaasadda ay ku jirto dib u eegis lagu sameynayo dastuurka shaqo abuurka oo ra'iisul wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha Soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka Qatar Turkiya midowga Yurub iyo kuwa kale oo nooga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo furana waa loo wada hadlay oo ra'iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacantana siisa